Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Muuqaalkan kooban waxaynu isla eegi doonaa madax xanuunku, noocyadiisa, astaamihiisa iyo sidii loo daweeyo madax xanuunku. Marka hore haddiinu qeexno, madax xanuun waa xanuun qofka laga qabanayo madaxa, taas oo sababi karto cadaadis badan inaad ka dareentid madaxa. Saamaynta ugu badanna wuxuu ku yeeshaa labada dhinac ee madaxa. Noocyadu madax xanuunku way badan yihiin. Waxaa ka mid ah madax xanuunka sanqaroorka oo loo yaqaano sinus headache. Madax xanuunka sanqaroorka waxaa keeno caabuq ku dhaco marinka hawada ee sanka, waxaana laga dareemaa wejiga iyo sanka dhinacyadiisa. Badanaana mana ahan nooca ugu badan ee dadka ku dhaco. Sidoo kale waxaa jiro madax xanuunka dhafoorka iyo qadaadka oo loo yaqaano tension headache. Xanuunkan markuu ku qabto waxaad moodaa inuu madaxa culays badan ka saaran yahay. Xanuunka ugu badanna waxaa laga dareemaa fooda ama dhinaca hore ee madaxa. Xanuunkan calaamadihiisa waxaa ka mid ah xanuun garaacmayo oo joogto ah. Sidoo kale waxaa jiro madax xanuunka goonjabka ama goonjo oo loo yaqaano migraine headache. Madax xanuunka goonjabku waa madax xanuun aad u daran, wuuna ka duwan yahay madax xanuunada kale. Madax xanuunkan waxaa keena barar ku yimaado marinada dhiigga ee maskaxda ku jiro. Xanuunkan wuxuu u badan yahay hal dhinac oo madaxa ah, laakiin waxaa laga yaabaa in uu faafo. Xanuunkan goonjabku wuxuu ka mid yahay xanuunada la kala dhaxlo ama la isku gudbi karo as a genetic. Qofku xanuunkan ku dhaco wuxuu dhibsadaa hadalka dadka iyo sidoo kale iftiinka aad ku birqayo. Madax xanuunka goonjabku wuxuu keenaa xanuun aad u daran sida isbedel aragga ku yimaado iyo sidoo kale lablabo iyo matag. Calaamadaha xanuunkani waxaa ka mid ah xanuun indhaha iyo dhagaha, iftiinka iyo codka oo qofka dhibo, xanuun dhafoorka ah, hoos u dhac dhanka urinta, dhadhanka iyo maqalka. Kan waxaa kugu kicin karo shukulaatada, miraha dhanaanka ah, iftiinka, sigaarka iyo qaylada. Haddaba sidee ayaa looga hortagi karaa xanuunkan goonjabka ama loo yaqaano migraine headache? Waxaa looga hortagi karaa inaad iska joojisid haddii aad isticmaashid khamri ama sigaar. Sidoo kale inaad ka fogaatid ama aad joojisid isticmaalka kafeega. Sidoo kale waa inaad ka fogaatid soo jeedka badan. Sidoo kale waxaa jiro madax xanuun wada jir ah oo loo yaqaano cluster headache. Madax xanuunkan wuxuu keenaa madax xanuun aad u daran. Madax xanuunadu waxay u dhacaan koox ama qaybo, waxayna dhacaan hal ama in ka badan maalintii muddo toddobaad ama bilooyin ah. Badanaa ma soo laabtaan 6 bilood ilaa sanad ama ka badan. Lama yaqaan wax keeno xanuunkan wada jirka ah ama loo yaqaano cluster headache, laakiin waxaa jira waxyaabo laga yaabaa in ay kicin karaan. Waxyaabahaas waxaa ka mid ah isbedel ku yimaado muddada ilayska qoraxda ee waqtiga guga ah iyo dayrta. Sidoo kale alkoholada waxaa laga yaabaa inay kugu kiciso, sigaar cabidda, cuntooyinka qaarkood, ugu dambeyntii dawooyinka qaarkood ayaa sidoo kale kugu kicin karo. Waa maxay dawooyinka loo isticmaalo madax xanuunka ama madax xanuunadan soo sheegnay? Waa maxay dawooyinka loo isticmaalo? Dawooyinka loo isticmaalo madax xanuunadu waa dawooyinka xanuun baabi'iyaasha sida paracetamol iyo ibuprofen. Haddaba sidoo dhakhtarka kuugu qoro ayaad u isticmaalaysaa. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Fadlan la wadaag asxaabtaada sidii ugu faa'iidaystaan. Xagga commentiga ahna noogu qor nooca ugu badan ee madax xanuunka ayaad aragtay iyo astaamaha uu lahaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.